dhallaanka oo ka daawataan mar kale channelkan YouTube ku leenahay ee dhalaan koriye toddobaad sheeko cusub ayaa ku maqashaan caruuray sheekada toddobaadkana waxay qaybteedii labaad tahay taxanaheennii sheekada siraad iyo aayadeed Lady Buffy qaybteedii hore intiinina la socotay waxaad daawateen sidii ay siraad ugu guuleysatay inay noqoto gabadha uu baadi goobayay boqorkii gurdoonka ahaa ee ku noolaa deegaanka ay siraad ku noolayd balse go'aankaasoo caruuray ma cajabin hablihii deegaanka kula noolaa ee iyaguna doonayay inay nasiib u yeeshaan oo ay noqdaan midda uu guursado boqorka ha uguba sii darnaato Lady Buffy iyo labadeedii habloode waxay ahayd waqti fiican boqoraduna waxay la naaloonaysay boqorka guursaday qasrigii weynaa ee quruxda badnaana gabadha nasiibka u yeelatay waxay ahayd siraad waqtigu wuxuu ahaa ku wacan waxayna ku faraxsanaayeen sida ay gayaankoodii isaga dhexusheen noloshuna ay ugu hagaagtay balse dhanka kale Lady Buffy iyo labadeeda hablood waxay u ahayd maalin madow waqti ay cunno ku dhex jireen ama bay cunaynaysay ayay Lady Buffy hinaasad darteed indhaha iska gelisay cunnadii halkii ay ka cuni lahayd waxay leedahay sida tan ma dhacdeen haddii boqorku inanteeda guursan lahaa inantuna waxay tidhi haddii boqorku aniga ay guursan lahaa maalin kasta cunnada boqorka ayaan qayb ka heli lahaa bisaduna waxay leedahay haddii boqorku dhammaantiinba uu noqon lahaa oo inaga inala joogi lahaa anigu xataa kalluun ayaan ku cashayn lahaa Lady Buffy waxay daadinaysaa alaabtii ay ka tagtay siraad mid ayay bannaanka ugu tuurtay dhammaantood waxay muddo daadiso oo ay tuurtaba mar dambe ayay isha la halacsatay sanduuq yar oo dhas iyo boodle markaas bay afuuftay kadibna furtay waxay aragtay oo isha la aragtay saacad nooc mucjiso ah waa saacad qarniyo ka hor jirtay oo meel lagu xayiray ujeedadeeduna aan tan iyo hadda fahmin balse waxay u muuqataa ta mucjiso iyo indhasarcaad leh markii ay furtay oo ay ruxday ayay la aragtay oo la tacajabtay wax la yaab leh oo hore aysan u arag saacadu waa tu indhasarcaad leh balse mucjisada ay wadataa waxa weeye in saacadu ay gadaal u wareegayso oo ay waqtiga dib celinayso halka saacadaha kale ay hara uga socdaan oo ay waqtiga wadaan iyadii hablaheedii ayaa tacajabay balse mar kaliya ayaa wax argagax leh kaga soo dhexbooday saacadii oo gariirtay intay kor u kacday oo ay qaraxday ayaa waxa ka soo dhaxbaxay jinduula dumara waxay ku tiri waa mahadsantihiin inay badbaadiseen ina noloshayda badbaadiseen intaas oo qarniyo ayaan halkan ku xayirnaa markaasay tiri yaa tahay waxaan ahay jinduulaaga waxaanan ku qaban karaa hadda wixii aad doonto abaal ayay igu leedihiin waa tiinii ii badbaadisay oo keliya ayaan u abaalgudi karaa wixii aad hadda ka fikirayso eed maanka ku hayso ayaan kuu rumayn karaa waa ayo tani badbaadisay ee iga soo saartay boogska aan qarniyada faraha badan leh ku xayirnaa mar kaliya ayay soo ordeen aniga ayaa ku badbaadiyey markaasay Lady Buffy tidhi jooga aniga ayaa badbaadshay kor intay u qaylisay dabeetana waxay u sheegatay jinduulaagii waxaan doonayaa in aad dib u celiso saacadaha waqtigana dib ugu celiso markii boqorku hablaha kala xulanayay kana dhigto in labadayda hablood ee quruxda badan leh midkood uu guursado jinduulaagina waxay ku tidhi waa lagu yeelay waxaad doonaysay saacadihii dalkoo dhan ayay dib celisay dhammaantoodna waqtigu dub ayuu u noqday isagoo isguraya si mucjiso leh ayay wax kastaaba halkoodii hore dub ugu noqdeen hadda waxaanu joognaa markii boqorka iyo boqoradu is aroosanayeen dub ayay uga sii waday oo way celinaysaa marba marka ka dambaysa haddana waxayna geysay waqtigii hablaha deegaankoo dhan ay kayuu u galeen si ay kabtii dahabka ahayd isugu tijaabiyaan ee dhalada dhalaalaysay ahayd haddana waxay dib inoogu celisay markii ay siraad soo gashay si ay kabta isugu tijaabiso way ka sii wado waxayna geysay markii ay guriga ku soo xayirtay si aanay uga daba iman waqtiga ayaa isa sii guray oo waa socday xataa waxay dib ugu celisay markii uu boqorku kabta helay
iyo markii ay saacaddu 12 habeenimo ku saqaysay markii boqorku uu la ciyaarayay siraad kana helay markii ay siraad carartay ay raacday fardihii loo diyaarshay waqtiga ayay dub sii waday oo waxay ku celisay xilli dambe way waday intii ay celin karaysay oo dhan sheekooyinka oo dhacayna dub ayay u celisay xataa waxay geysay markii ay siraad iyo saaxiibadeed geedka hoos fadhiyeen waxaana geedka laftigiisii mar kale ka soo baxay duulaagii waxna nasiibka iyo badhaadhaha u horseeday siraad waxuu ku yidhi miyaad ogtahay waxa dhacay markaasay tiri ma ogi waxa dhacay laakiin mar kaliya boqorkii waa uu garan waayay waa uu tuuray waxaan arkay anigoo noloshaydii hore dhex fadhiya oo sida tana waxay tiri Lady Buffy waxay furtay sanduuq qufulaa oo jin duulaal lagu xayiray kaasoo loogu talagalay caadiyan in uusan weligiiba dub soo bixin oo aan la arkin waad arki kartaa hadda waxay soo qaadatay saacadaas markaas ayay furtay kadibna jindulaagani waxa uu awood u yeeshay inuu saacadaho dhan dib u celiyo waxay u sharaxday wixii dhacay oo dhan waxay tiri hadda maxaynu qaban karnaa aan ku tuso bal sida ay wax u sameynayso Lady Buffy waxay doonaysaa in hablaheeda ay u guuriso boqorka adigana nolosha ay sida kaaga dhex saarto jinka ay adeegsanaysaana waa kan ku muuqda ayay ku tiri waxaan doonaynaa inaan kaasoo dhan ka guulaysano in adigu aad ahaato boqorada guulaysatay waxay tidhi sidee ayay ku dhici karaysaa maba jirto sababtoo ah boqorkii guursadayba aniga ay garan maayo waxay samaysay duulaagii quruxda lahayd inay sheekada dib ugu celiso markii boqorku uu warqadda soo qortay uu hablaha deegaanku dhan ka codsanayay inuu guursado waxay sidoo kale ku celisay markii ay habluhu tolanayeen toobabka ee loona diyaar garoobayay in mid kastaaba toobkeeda tolato markaas oo ay ku xayirtay aayadeed siraad qol aanay ka soo bixi karin waxay u shaqaynaysaa wax waliba sida ay ku tala gashay waxay doonaysaa in Lady Buffy boqorku uu guursado labadeeda hablood mid ka mid ah laakiin jindulaagii oo la shaqaynaya ayaa gadaasha kale kaga dhuftay wadnayaal wadnuhuna waxa weeye qofka uu jeclaanayo ayuu kadibna Lady Buffy waxay keentay inanteedii curad boqorkuna iyada ayaa u jeclaaday waxa caawinaya sixirkii jinku sameeyay balse siraad iyo saaxiibadeedu waxay ku xayiran yihiin qolkii oo ay labada jiir la dhex joogto sidaas la midana waxa shimbirtii oo ay duulaysaa ay keentay saacadii waa saacadii xayirnayd ee jinku ka soo dhex baxay waana tan hadda sababtay inay ku dhacdo nolosha noocana markaliya ayaa waxaa soo baxay duulaagii wanaagsanaa ee iyada caawin jiray waxuu ku yidhi saacadda tan ayaan ku celinaynaa oo waxaan tan ku burburinaynaa kuna xayiraynaa jinkii adiga noloshaada qarribay waxaanu ka shaqaynaynaa qorshe weyn oo aanu arrinta ku badbaadin karno laakiin mar kaliya ayaa jindulaagii geedka gadaashiisa ka soo baxay wuxuuna la dagaalamay duulaagii kale ee wacnaa ee nasiibka iyo badhaadhaha boqorada u horseeday siraad waxuu ku yidhi waad iska ilaabi kartaa siraad nolosheeda waan burburiyey adigana sidaas si leeg ayaan kuu burburinayaa dagaal ayaa ka dhacay marba marka ka dambaysa ayaa la isku adeegsanayay dab iyo shucaac midba midka kale doonayay inuu awoodiisa ku burburiyo siraadna aad ayay u baqatay labadii jiir iyo shimbirtii caawin jirtina waxay ku dhuumanayaan lugaha siraad jindulaagii ayaa isku dayay inuu burburiyo duulaaga wacan ee badbaadinayay boqorada laakiin markii dambe waxa guulaystay caruuray duulaagii wanaagsanaa wuxuuna burburiyey jindulaagii oo dhulka ku tuuray way dhaqaaqday waxay ku tiri fur saacadda jindulaaga ayaynu ku xayiraynaa waana halkii nolosheeda oo dhan hore loogu xayiray siraad intay furtay ayay ku tuurtay jindulaagina waxa uu dhex galay saacaddii oo sidaas ayuu mar kale noloshiisa ku xayirmay dhulkana way ku dhacday saacadahoo dhanna hadda dub ayay ugu laabteen sidii caadiga ahayd wax kasta waa iskurayaan wax kastana waxay u laabanayaan waqtigoodii laakiin sheekadu intaa kuma dhamaa waxa duulaagii wacnaa uu mar kale ka dhigay boqoradii una soo celiyay dharkeedii timaheedii iyo kabaheedii dhalada ahaa waxayna siraad sidaa ku noqotay qofkii hore ay u ahayd si aan wax badani u seeginna waxay markan
diyaarad ama faras duulaya uga dhigtay shimbirteedii oo ay qabsatay way la duushay si ay u gaadho qasrigii muddo waxay sii sidaa way hawada kula jirtaba marba marka ka dambeysay waxay kula dhawaanaysay boqortooyada iyo qasriga ay ku noolayd boqoradu halkaas oo hadda uu boqorku kula nool yahay mid ka mid ah hablihii ay Lady Buffy gashay kadinka ayaa ka soo galay boqorka jacayl aan run ahayn ayaa lagu abuuray oo indhihiisu waxay arkayaan oo kaliya inanta Lady Buffy laakiin labadii jiir ayaa caawinaya waxay ku yiraahdeen boqor miyaanad gadaashaada arkayn sawta boqoradii dhabta ahayd ee aad qabtay markii ayaa yiri maxay leeyihiin waxay ku tahay dhag hawdhigin ee ciyaartay noowad markaasuu ku yiri boqor maqal eeg bal xagga dambe runtii waxbaad arki doontaaye boqorkuna waxa uu arkay in xaaskiisii aysan tan u la ciyaaraya ahayn waxa uu tagay boqorada Siraad wuxuuna markale ka raali geliyay dibtii dhacday wuxuuna u sheegay in waxa dhacay oo dhan uusan isagu la socon balse uu ka xun yahay markale ay noloshooda dib ugu soo laabatay Siraad iyo boqorkii waxaana halka ku burburay rabitaankii Lady Buffy iyo labadeeda hablood sheekada tarcaruure waxaad ka baranaysaa oo ku tusaysaa in markasta samawaluhu uu ka guuleysado amba ka guuleysto xumawadaha nolosha Siraad iyo boqorkuna markale ay halkeedii ka sii noqotay jinkii adeegsanayeen Lady Buffy iyo hablaheedana waa laga guuleystay hawaaro jacaylku ayay noqotay waxaana sidoo kale guuleystay boqorka iyo boqorada balse hagardaamooyinka iyo dhibaatooyinka ay maleegayso Lady Buffy una dhigayso inanta ayada u tahay carruurey intaas kuma ekaan doonaan sheekada tan ku xigta ayaad ku baran doontaan kula ogaan doontaa qisada tan xigta iyo waxa dhaca tan sheekadeena dambana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo halka nagala socotaana hadeertadan waa dhalaan koriye